fadlan ku xidhnow kanaalka oo taabo subscribe sidoo kale fura gambaleelka ama jilis. Assalaamu calaykum kula wacana wanaagsan meel kasta dunida ka joogtaan. waa mar kale iyo barnaamijyadeena caafimaadka. mawduuceena caafimaadka ayaa maanta waxaan kusoo qaadan doonaa waa maxay proteinuria ama marka ay kaadidu leedahay ama uu ku badan yahay waxa loo yaqaano borotiinku. marka laga hadlayo proteinuria inta badan lama xidhiidho ama waxa ay dhici kartaa inaan wax xidhiidh la yeelanin cudur marka qofka soo asiibo ama ku dhaca. hase yeeshee waxaa suurtagal ah in uu ku yimaado ama ay ku timaado proteinuriadu xaaladaha hadda soo socda aynu sheegi doono. waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano dehydrationka ama in qofka markaa jirkiisa ay biyuhu ay ka baxaan. taasina waxyaabaha keeni kara maadaama fuuqbax badan qofkii ku dhacay. waxyaabaha kale keeni kara waxaa ka mid ah iyadoo qofka marka uu ku badan yahay warwarka ama cabsidu ay ku badan tahay. waxaa kaloo keeni kara in markaa kaadida qofka lagu arko borotiin. waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid ah iyadoo markaa qofku ku dhaco qabow fara badan ama qabowga fara badan qofku dareemayo ayaa waxa ay dhici kartaa in muruqyadiisa ay si aad u shaqeeyaan dabeetana ay markaa kaadida soo raacdo waxa loo yaqaano borotiinku. waxyaabaha kale ee keeni kara la xusay waxaa ka mid ah xumada faraha badan leh ama waxa loo yaqaano high fever luqada qalaad. taasina waxay ka mid tahay waxyaabaha keeni kara proteinuriada. dhinaca kalena waxaa kale oo keeni kara marka qofku uu qabto shaqo adag sida tusaale ahaan kale jimicsi kaasoo markaa ka badan intii xadkii qofka loogu talagalay waxaa loo yaqaano strenuous exercise taasoo markaa ka shaqaysiinaysa murqihii. waxaana soo baxaya qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee markaa borotiinka kuwaasoo markaa suurtagal tahay in lagu arko kaadidiisa markaana sare u qaadaya waxaa loo yaqaano borotiinka lagu arko kaadida oo marka qofku caafimaad qabo ay dhici kartaba in aad aan lagu arag ama ay yar tahay xaddiga lagu arkayo ee borotiinka. dhinaca kalena waxyaabaha kale ee keena waxaa ka mid ah in qofka kaadidiisa lagu arko borotiinka dawooyinka qaarkood oo qofku marka uu qaato dabeetana iyaguna sare u qaadi kara maadada loo yaqaano borotiinka oo lagu arko marka kaadida qofka. haddaba sidee ayaa lagu daweyn karaa waxa loo yaqaano proteinuriada? waxyaabaha loo daweyn karo ama siyaabaha loo daweyn karo proteinuriada inta badan waxay ku xidhan tahay qaabab kala duwan. hase yeeshee ta koowaad waxay noqonaysaa in qofku markaa uu si iskiisa isagu markaa isu daweeyo. waxyaabaha ka mid ah in hoos loo dhigo tusaale ahaan oo kale miisaanka qofka. waxaa kaloo ka mid ah in qofku uu sameeyo jimicsi hase ahaatee jimicsigaas uu noqdo mid xadidan oo markaa aan aada u badnayn maadaama uu keenay jimicsiga xaddhaafka ama waxa loo yaqaano exercise-ku in markaa kaadida lagu arka borotiin. waxyaabaha kale ee markaa lagu daweyn kara waxaa ka mid ah waxaan ku jirnaa life styleka ama qaab nololeedka qofka siduu bedelayay in qofku uu joojiyo waxa loo yaqaano sigaarka ama sigaar cabista hadduu yahay markaa qof sigaarka caba. intaa marka laga yimaado haddii markaa qofku uu weli isku sii arkayo in kaadidiisa ku jira borotiinku waxyaabaha uu sameyn kara waxaa ka mid ah islamarkaana lagu garan karo in qofka markaa uu kaadi leeyahay islamarkaana lagu garan karo in qofka marka kaadidiisa ay ku jiro borotiinku in lagu arko xumbo qaasatan marka kaadida tusaale ahaan oo kale qofku uu maydhayo tusaale ahaan oo kale ama marka uu biyaha raacinayo suuliga oo kale. waxyaabaha kale marka lagu gowan karo waxaa ka mid ah in dhakhtar markaa uu kasoo qaado isagoo markaa irbad gelinaya islamarkaana kaadi haysta qofka laga eegayo inuu ku jiro borotiinku. waxyaabaha kale markaa lagu ogaan karo in qofku leeyahay borotiin waxaa ka mid ah daal fara badan ama markaa qofku dareemo daal aad fara badan. waxaa kaloo ka mid ah in hurdada khalkhal kaga yimaado. waxaa kaloo ka mid ah waxaa loo yaqaano yelaaliyada ama lalabada iyo sidoo kale mataka. calaamadaha kale lagu garan karo in qofka markaa kaadidiisa ku jira borotiin waxaa ka mid ah maqaarka qofka qalala iyo sidoo kale maqaarka qofka oo markaa qofku ka dareemo cuncun. kuwaas marka wax ka mid yihiin calaamadaha lagu garan karo. waxaana la soo jeedinayaa qofka markaa inuu la xiriiro dhakhtar isagoo dhaqsaa badan leh. hase ahaatee waxyaabaha kale la soo jeedinaya waxaa ka mid ah haddii qofku isku arko in markaa ay gacmihii iyo lugihii iyo markaa ubucdii iyo wejigii oo kale ay markaa ay barar sameeyaan iyo sidoo kale in qofka ay markaa neeftu qabanayso oo kale in markaa qofku dhakhtar sida u dhaqsaha badan leh uu markaa ula xiriiro isagoo markaa aan ka dahaynin maadaama xaaladda qofku ay markaa sii cuslaan karto. marka inahaas ayaan jeclay inaan kusoo koobo waxaa loo yaqaano proteinuriada oo inta badan dadka qaarkood ama dadka Soomaalidu ay waayadii dambe ay isku arkayeen. waa ku mahadsantihiin dhageysigiina.